dowladda Spain ayaa si rasmi ah u bilowday qorshe ay ciidamadeeda kaga saarayso qaar ka mid ah goobaha ay kaga sugan yihiin bariga dhexe halkaas oo ay qayb ka ahaayeen howlgallada isbahaysiga NATO. Tallaabadan ayaa timid xilli xiisad siyaasadeed iyo kuwa amni ay si soo tarayso gobolka bariga dhexe. Wararka laga helayo ilo military ayaa sheegaya in ciidamada laga saaray hadda ay ku sii jeedaan saldhigga istiraatiijiga ah ee Incirlik Air Base kaas oo ku yaala koonfurta dalka Turkiga. Saldhiggan ayaa muddo dheer waxa uu ahaa xarun muhiim u ah howlgallada NATO iyo ciidamada reer galbeedka ee ka howlgala bariga dhexe. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Spain ayaa tilmaamay in tallaabadan ay qayb ka tahay dib u habeyn lagu sameynayo joogitaanka military ee dalka dibaddiisa si loo waafajiyo xaaladaha cusub ee amniga iyo danaha istiraatiijiga ah ee Madrid. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ciidamadan ay gabi ahaanba laga saarayn howlgallada balse dib loo abaabulayo meelo kale muhiim ah. Waxaa la rumaysan yahay in go'aankan uu la xiriiro xaaladda cakiran ee ka taagan bariga dhexe oo ay ka mid yihiin colaadaha sii daba dheeraaday, weerarada istaba joogga ah ee ka dhacaya gobolkan ee muranka badan ka jira bariga dhexe, iyo khataraha sii kordhaysa ee ku wajahan ciidamada shisheeye. Waxaa sidoo kale jira walaac ku saabsan badqabka askarta iyo baahida loo qabo in la xoojiyo difaaca meelaha muhiimka ah. Dhanka kale, isbahaysiga NATO ayaa la filayaa inuu dib u qiimeyn uu ku sameeyo istiraatiijiyadiisa gobolka bariga dhexe, iyadoo dalalka xubnaha ka ah ay kala dooranayaan joogitaan military oo joogto ah iyo in la yareynayo khataraha ka dhalan kara xaaladaha sii murugsan. Ugu dambeyn, tallaabadan ay qaaday dowladda Spain ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato howlgallada wadajirka ah ee NATO ee bariga dhexe, iyadoo indhaha lagu hayo sida ay ugu falcelinayaan dalalka kale ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO iyo saameynta ay ku yeelan karto amniga guud ee gobolka bariga dhexe.